mar kale iyo kulanti waxaan saaxiibayaa ku soo dhowaada qaybta 32 ee taxanaha buugga Futuuxul Xabasha ee mahadhareebka sooyaalka taariikheed qarnigii 16aad ee Geeska Afrika, qarnigii Imaam Axmed Gurey. haddaba qaybtii hore waxa ay noo maraysay ama ay noo joogsay kolkii uu Badriiq Aki ogaaday in caruurtiisii iyo islaantiisiiba ay ka haysteen ciidamada muslimiintu inuu isa soo dhiibay oo uu islaamay. kadib markii uu islaamayna in Imaam Axmed Gurey uu u celiyay caruurtiisii iyo islaantiisiiba. halkaas ayay noo maraysay qaybtii hore, halkaas baana ka sii wadayna. xaaladdu waxa ay sidaas ahaataba waxa ay imaamka kula kulmeen meesha la yiraahdo deegaanka Candora oo ka mid ah gobolka Dawaaro, waxaana halkaas ku taalay kaniisad weyn oo uu lahaa boqorkii Xabashida ee lagu magacaabi jiray Wasansagad. waxay ahayd kaniisad si cajaa'ib ah loo dhisay oo si la yaab leh loo ebiyey. dhismaheeguna waxa uu socday ilaa 11 sannadood iyo dheeraad. kaniisad waxay ahayd dhulka Dawaaro gebi ahaanba mid la mid ah aanay ku oolin kolka loo eego sida loogu farayaraystay xararkeeda qurxinta iyo waqtiga galay. haddaba kolkii imaamka iyo ciidamadii muslimiintu ay soo gaareen halkii ay ku taalay kaniisaddu, ayaa raggii ilaalada kaniisaddu cagaha wax ka dayeen oo meesha iskaga carareen, ayagoo dhanna ilaa 1,000 ciidamada lugta ah oo reer Dawbaca ah, ayagoo watay warma sumaysan oo lagu magacaabi jiray ama loo yaqaanay Jaatu. ciidankii muslimiintu markii ay arkeen kaniisadda waxa ay ka yaabeen dhismaheega iyo sida loo xardhay. kadib waxa ay galeen gudaha kaniisadda, waxa ayna ka dhex heleen agabyo badan oo muhiim ah sida gogol lagu sameeyey Rooma, agab, dhar, xariir iyo waxyaabo kale. calaa kulli xaal muslimiintu dhammaanba way qaateen xoolihii dhex yaalay, dabadeed waa ay gubeen kaniisadda. intaas kadib muslimiintu deegaanka Candora ayay degeen oo ay ku nagaayeen ilaa 6 maalmood. kadib ciidamadoodii oo ay ku jiraan fardoolaydu duulimaad ayay ku kala bixiyeen dhulka gobolka Dawaaro, ayaga oo soo qaatay boojimo badan. waxa ayna gacanta ku soo dhigeen oo ay soo qabteen dad badan oo Xabashidii gaalada ahayd. Amiir Saxbaraawi iyo Garaad Axmooshi ayaa maqlay in khasnadii Wasansagad ay taalo dhulka loo yaqaano Jaatir. dabadeetana dhanka iyo dhulka Jaatir ayay u kaceen si ay khasnadaas gebi ahaanba gacanta ugu soo dhigaan. halkii loogu sheegay kolkii ay tageen khasnadda barkeed oo keliya ayay gaareen oo way soo boojiyeen. nasaaradiina barkii kale ayay la baxsadeen markii ay maqleen imaanshaha muslimiinta. laakiin muslimiintu dhar iyo xariir iyo agabyo kale oo muhiim ah ayay ka dhex heleen kaniisadda. dahabsi lama yaan kulmin. imaamkii oo jooga deegaanka Candora ayay ku soo noqdeen muslimiintu. imaamkii kolkii uu yimid deegaanka Candora ayuu boqorkii Xabashidu maqlay in muslimiintii ay soo gaareen deegaanka Andokiya. Badriiqiisii iyo Saamu in la jabiyey oo askartiisii la laayay, kaniisaddii Wasansagadna la gubay ayaa loo sheegay. ilaa iyo xad aad buu uga tiiraanyooday oo uga xumaaday. dabadeetana inta uu badriiqyadiisii kuwii loo soo marayay iyo xusuustiisiiba iskugu yeeray ayaa waxa uu yidhi, waad maqasheen sida ay muslimiintu u burburiyeen gobolka Dawaaro, jabka ciidankeenna iyo sida loo laayay. fariin buu u diray reer Tigraay iyo ciidamadoodii, wayna u yimaadeen ayagoo isugu keenay badriiqyo iyo askar aan la tirin karayn. ciidamadiisii waxa uu madax uga dhigay nin la odhan jiray Taglay Yaasuus oo ahaa guddoomiyaha deegaanka Andokiya, oo kolka horeba boqorku madax uga dhigay Andokiya. gobolka Tigraay iyo Bender Dakhadu oo ahaa nin uu boqorka Xabashidu jecel yahay, waxa uu ku amray inuu u kaco dhanka iyo gobolka Dawaaro oo muslimiinta abaaro lana dagaalamo. haddii aan u soo noqonno Badriiq islaamihii uu imaamku ku jabiyey deegaanka Andokiya, dhulka sari ayuu dhuumasho ku galay isagu. halkaas oo ahayd meel dhudhub ah oo aad u daran. waxa uu fariin u diray boqorkii Xabashida
isagoo u cudur daaranaya iskuna dullaynaya oo leh anigu muslimiinta dagaal ulama aanan safan ee wayna dageen weerarkadiisa ayay nagu soo qaadeen annagoo aanan diyaar ahayn oo aan hayn wax awood ah muslimiintu waxoogaa fardo ah ma ahee wax kale nagama aanay qaadan boqorkii baa ugu jawaabay hadal hanjabaada waxa uuna ku yidhi waad og tahay inaan ku siiyey ciidan aad moodda ayax tiro badni daraaddeed waxbana kuma aadan tarin iminkana waxaa kuu imaan doona asmaaj tagle yaasuus ee waa inaad raacda wixii uu kugu amrana yeel oo ah ka hor imaanin amarkiisa waxaana kaa rabaa inaad gacan ka siisid la dagaalanka muslimiinta ninkii tagle yaasuus dhankaa iyo gobolka dawaara ayuu u dhaqaaqay isaga oo watay badriiqyo badan oo ka hooseeyey oo ay ka mid ahaayeen fiqra yaasuus oo uu boqor iskaandar sodog u ahaa oo uu gabadhiisa qabay ahaana nin macangeg ah oo madax adag iyo badriiq caamir oo isagu ahaa reer tigray shuunkii siri iyo shuunkii saraawi iyo kuwo kale oo la mid ah badriiqyada tigrayu iyagu waxay ahaayeen tiraba ilaa 30 badriiq walbana ciidan fara badan oo fardoole iyo kuwa lugta ah ayuu watay oo hoos imaanayay oo ay ka mid ahaayeen reer angoots waa ay socdeen ilaa inta ay gaadhayeen toga hawaas oo ay ka tallaabayeen badriiq isaamu oo isagu joogay dhulka sari ayay la kulmeen waxa uu dadkii iyo boqor isaamuba u akhriyey warqaddii boqorka oo ugu sheegay inuu boqorku taliye uga dhigay isaamu oo isku dirqanaya ayaa yidhi maqlay oo yeelay fariinta boqorka haddaba tagle yaasuus warkii muslimiinta ayuu u koorgalay kolkaas ayay basaasiintii isugu yeereen oo ay ku yidhaahdeen muslimiintii deegaanka candoora ayay joogaan halkii ay ku taallay kiniisadda weynsanseged agteeda inay muslimiintu dhulkoogii ku noqonayaan ayuu u malaynayey kolkaas ayuu ciidankiisii ku yidhi waxaynu iska fadhiyaynaa halkan aynu joogno haddii ay muslimiintu dhulkoogii u dhaqaaqaan waynu iska dayn ilaa inta ay gaarayaan meesha la yidhaahdo dalmayda halkaasaynu ku gaaraynaa waynu weerari doonnaa kolkaas baynu dhammaantood wada layn doonnaa muslimiinta talada ayaa la qumanaatay oo waxa ay ku yidhaahdeen taladu waa taa aad ku talisay annaguna waan kugu raacsiisannahay aad baad u mahadsan tahay haddii aad halkan la soo gaadhay la soco qaybta 33aad ee taxanaha buugga Futuux al-Habash ee mahadhareebka sooyaalka taariikheed ee qarnigii 16aad ee Geeska Afrika